magaalada Laascaanood waxaa laga furay xarun caafimaad taasoo adeegeeda ay bulshada ku nool gobolka Sool baahi weyn u qabtay. Laascaanood Diagnostic Center oo ah adeega CT scan-ka oo lagu ogaado heerarka dhaawacyada iyo xanuunada kale ee la soo gudboonaada bulshada ayaa laga furay markii ugu horeysay gudaha magaalada Laascaanood. adeegan ayay dib weyn ku qabtay bulshada gobolka Sool iyo nawaaxigeeda waxaana bukaanada u baahda adeegan loo qaadi jiray magaalooyin fogfog waxaana geli jiray safar iyo qarash aad u tiro badan. xaruntan waxaa maalgeliyey haltaalo ku yaala magaalada Laascaanood kuwaasi oo bulshadu si weyn ay ugu mahad celisay tallaabada wanaagsan ee ay qaadeen. Dr. Siciid Xasan Casoowe oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka warbixiyey adeega ay xaruntana bixinayso. ee loo safro magaalooyin durugsan oo qaarkood 500 kilomitir ay jiraan loo aadi jiray waa fikrad ka dhalatay shacabka deegaankeena oo had iyo jeer anagu maadaama aan bukaankii la macaamilayno beeshana badan ayaa mar walba na weydiin jiray marka qofkii bukaanka ahaa uu u baahdo iskaan maxaa gobolkeena loo keeni waayay maxaa dhakhaatiirtiina iyo dadka waxa ehelka u ah ee fahamsan maxaad u sameyn weydeen macna dad fara badan oo dhibsan jiray baa jira inay safraan maxaa la yiraahdaa beeshankii la qaado 500 kilomitir uu socdo iyadoo sawir uu soo saarayo marka waa fikrad ama proposal ka yimid marka horeba bulshadeena inka ama diagnostic machine kan CT scan-ka waxaan u maleynayaa wuxuu ahaa nooca mashiinka ee kaliya ee magaaladeena ka maqan inta badan ultrasound-yada kale wax lagu baaro shaybaadhada kale ECG-ga echocardiography kuwa wadnaha lagu eego intooda badan xarumo un ka mid ah magaaladeena waa laga heli jiray laakiin CT scan-ka ama mashiinkan wuxuu ahaa ka kaliya ee aan magaaladeena aan jirin markii aanu fikradda aragnay waxaanu istusnay in xarumaha caafimaadka intooda badan loo bandhigo in si isku tashi ah oo dadku ay isugu tagaan loo maalgeliyo mashiinkaas maadaama qiimaha uu ku kacay uu aad u badnaa kadibna waxaanu la kulannay intii badnayd xarumihii caafimaadka intii markaa dee ilaahay haleelsiiyey in maaragtay ay contribution ku sameeyaan ayaa samaysay kadibna waxaa suurto gashay in mashiinkii inkastoo waqti dheer qaatay oo sanad iyo bar waqti ku dhow oo koronihii iyo waxaas haddana uu inaxanibay in maaragtay aakhirkii uu hirgalo maanta oo uu shaqaynayo oo maalmahan haddeer ina soo dhaafay oo dhan uu shaqaynayay laakiin rabadaanta aakhirkeedii aanu isdhaafinaynay rabadaanta si xafladani ay u qorsoonto oo bulshadii loogu soo bandhigo mashiinku muxuu qaban doonaa ama waxyaabaha uu faa'iido kaleeya maxaa ka mid ah mashiinku wuxuu qaban doonaa wuxuu sawir ka qaadi doonaa tusaale ahaan dadka uu ku dhaco stroke ama maskaxda oo kale neurology meelaha ugu badan ee lagu isticmaalo waxaa ka mid ah maskaxda lafdhabarta xangulaha iyo maxaa la yidhaahdaa ku jirta inteeda kale waxyaabahaas oo dhan oo tusaale ahaan waxaa dhici jirtay qof uu faali ku dhacay faaligu stroke baa lahaa faaligu laba nooc uu noqdaa marka mid waxaa la ischemic stroke oo qofka xinjir iyo waxaas oo kale ayaa isku gufaysa xididada maskaxda midna waxaa la hemorrhagic stroke waxaa laga yaabaa inuu xidid dilaacay marka labada dawadoodu opposite bay isku yihiin marka markiiba waxaa waajib ah qofkaas stroke ku dhacay inuu waqti kooban scan ku helo si diagnosis-ku u saxmo ama bukaanka maxaa la yiraahdaa nooca faaliga ee ku dhacay maadaama dawooyinkoodu ay opposite isku yihiin oo dawadii hadduu ahaa mid dhiig maskaxda ku daatay ah maxaa la yiraahdaa dawooyinka xinjirta la siiyo way ku sii kordhaysaa marka baahi weyn ama muhiimad weyn ayuu ka daboolayaa dhakhaatiirta caafimaadka wuxuu kale oo wax badan maxaa la yiraahdaa sawirada ka qabanaya urku jirta feedhaha lafaha waxaan u malaynayaa wax fara badan oo dee baahi ah oo aynu sidaa ugu aadi jirnay meelo durugsan inuu ka fargarayn doono haddii la haydmo waxaan malanayaa muddada sanadka ahayd maamul ahaan waxaan malanayaa Dr. Nuux Yaasiin iyo Dr. Casoowe iyo ganacsade Ismaaciil Axmed Dayib baan u malanayaa maamul ahaan systemka keenadiisa iyo xaaladiisa
inta badan noo qaabilsanaa marka aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoo hadda uu dhakhtar Nuux Yaasiin naga maqan yahay oo fasax ku jiro waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa shirkad wadani ah oo tusaale ahaan laga leeyahay xarunta Hargeysa oo xarumo fara badan oo Garowe iyo xamarna ku leh shirkadaas oo shirkad wadani ah Ejnaan Cabdifataax nin la yiraahdo maamulka ah waa shirkadii suurta gelisay inay nagala qayb qaadato ama ay soo fududeyso in CT scan-ka laascaanood yimaado oo processkii ilaa China ilaa muxuu ahaa ilaa laascaanood intii u dhaxaysay laf dhabar bay noo ahayd marka shirkadaas shirkad wadani weeye Agmas baa la dhahaa aad iyo aad baan iyadana rabaa inaan uga mahadceliyo sababtoo ah maanta way suurtagali weeyday inay noo yimaadaan oo xarumahooda yara fog oo xamar iyo Hargeysa joogaan waxaan kaloo rabaa iyadana inaan u mahadceliyo shirkaddan Sol Power oo markii ay mashiinku noo yimi nagala qayb qaadatay inay noo fududeyso waxyaalo fara badan oo muxuu ahaa caqabad nagu ahaa marka iyadana aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in baahidii loo qabay in ay maanta inaga soo afjarantay dhammaan marka bulshada waxaan ama dadweynaha aan kula talinayaa cidii marka rajaynaysa in iskaan ama ciladoodu ay dareemayso in iskaan tahay inay xarumaha caafimaadka iyo qolada dhakhaatiirta ay kala tashadaan maadaama uu baahi gaar yahay oo tala bixin u baahan yahay oo muxuu ahaa ay ku xiran tahay systemkiisu dhakhtar ku xiran yahay in dadkii la wacyi geliyo oo loo sheego oo waxana ay isku mid yihiin aqoontuna ay isku mid tahay baynu u baahanno dhammaanteedna inuu dadka aynu wacyi gelino aad iyo aad baan taana aan lagu koobin waxaanu keenay laakiin dadkana la wacyi geliyo oo goobaha dhakhaatiirta ee la imaanaya lagu wacyi geliyo inay isku mid yihiin iskaanimada wadanka yaala ay ku kala duwan yihiin qofka saaraya adeeg loo baahnaa runtii aad loogu baahnaa waan ku faraxsanahay hadaan nahay bulshada gobolka adeegaad noo soo kordhiseen aad baan runtii idinku hambalyeynaa aad baan idinku mahadcelinaynaa runtii de bulshadu marka ay meel degan tahay waa gruubyo oo qayb waliba waxbay qaabilsantahay sida hore looga dhawaajiyay dad baa bahda caafimaadka dad baa ganacsato ah dad baa bahda waxbarashada ah dad baa adeegyo kala qabta runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahda caafimaadka ee gobolka oo hadda aad moodo baryahan dambe inay gobolka ay ka muujiyeen dadaal aad u badan ama ha noqoto cusbitaallo gaar loo leeyahay ama ha noqoto cusbitaalka guud runtii waxaad moodaa gobolka hadda in adeega caafimaadku uu sidii uu Dr. Cabdiraxmaan inoo sheegay inuu dhadhow yahay baahida horta adduunka ee caafimaadku had iyo jeer waynu la soconaayo wadamada u waaweyn sida Mareykan iyo Hindiya iyo waad arkaysaa hadda aad uga cabanayo oo ka qaylinaya waa wax iska jira baahida caafimaadku inay mar walba culays leedahay ama juhdigii aadamuhu uu galiyay caafimaadka bini'aadanka sidii loo ogaan lahaa maadaama uu isagu yahay waxaa nasiib wanaaga inuu nagu soo gaaray goobteena nagu soo gaaray geeska Afrika waliba aynu joogno laascaanood nagu soo gaaray arrin aad u nasiib wanaagsan weeye waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa dhakhaatiirtu ka yara dhawaajisay waxyaabaha loo isticmaalo marka de inta badan marka maadaama aynan aqoon dadkeenu waxa iska qaadaan waa dhiig iyo kaadi laakiin waxa loo isticmaalaa bini'aadanku hadda uu isticmaalay waa waxyaabaha ugu qaalisan for example tusaalahan Dr. Siciid oo kale wuxuu ka dhawaajiyay stroke oo kale iyo ischemic oo kale waxa ka sii daran taa ka sii muhiimsan waxa weeyaan marka ay tarumadu inagu dhacdo jugtu marka ay inagu dhacdo jugaha dadka ku dhaca haday gaar ahaan lahayd iyo hadii qof xabad lagu dhuftay ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd mid dhabi lagu dhuftayba waxyaalaha uu keenaya medical emergency-ga ee xataa mararka qaar kood 72 saacadood qofku uusan awood u haynin ka badan haddaan qofka management loo sameeynin waxa kamid ah epidural hematoma oo kale subdural hematoma oo kale inay maanta noo daahfuraan iskaanka oo awal qaybaha ugu muhiimsan ee caafimaadka lagu baaro ee eriyadan ka maqnayd ilaahay baa mahadleh iyagana waanu mahadnaqayaa ugu habboon waxyaabaha ugu faraha badan ee loo qaado dadka horta kamid ah marka baahida caafimaadka waxaad moodaa in inteedii badan bulshadeena iyo gobolkeena ay daboolmayso oo de haddeer waxyaabaha
waxa kamida noocyada hadda aynu sheegayno iyo noocyo yaryar oo kale oo takhasusaad u baahan oo qofkii in muxuu ahaa xubnihiisa qaybo kamida la bedelo sida jointiska iyo miskaha iyo waxyaabo isbiishada oo saasa baan kostigiisa haddii 10 dhakhtar ama 5 dhakhtar ama 6 dhakhtar ay joongareeyaan waa very simple goobaha ka midana wuu fariisanaya goobta ay ku haboon tahay accesska u leh inuu fariisto oo uu ka heli karo waxyaabihii oo dhan wuu fariisanaya waxa waana la joongareynaya waxa la isku qorayaa $400 taasina waa fikir kale oo aan soo kordhinaya maanta inaynu halka ka sii wadno sida leeno amaanay inayna xaliri sidoo sheegay Cabduween qani waxa lagu dhuftaa fariiska uu shaaka sii badiyay inayna insurance iskaanki hadda keenteen ayna fariisanin qofka ugu horeeya uu noqdo expertiga CT iskaanka saaraya inaan diyaar u nahay inaan joongareyno qarashkiisa oo aynu doonano goobta inuu haboon oo inoo fadhiisto mushaarkiisuna uusan qolqol culays ku noqonin inta la baranayo oo wax la soo baxayo ee dhamaanteen aan ka midaysnaano sidaynu qolofka uga midaysnaanay inaynu ka midaysnaano cidda inoo saaraysa oo anigu hadda dhawaan waxaan ka imid Muqdisho waxa weeyaan dhalinyaro yar oo neersin hore tababaray ayaa saaraya laakiin waxa weeyaan muhiimadu waxa weeyaan qofka akhriyaya weeyaan qofka akhriyaya wuxuu soo saari karaa isagoo qofku sakaraada inuu yiraahdo waxa ma qabo wuxuu soo saari karaa inuu isoo qofkii xaqbartiisii uu taabto wuxuu soo saari karaa inuu meel aan meeshii ahayn uu taabto wuxuu soo saari karaa inuu shantii xanuun ama shantii goobeed looga baahnaa saddex gooboodna uu awoodo inuu sheego laba gooboodna uusan awoodin marka inaynu experti doorano isla markaana cid kaliya aan culays ku dhicin sida materialka aan u qaybsanay aynu u qaybsanay mushaarkiisa inaynu barno dhalinyaro inoo saarta oo gobolkeena ah oo aynu kaga maarano inaynu ka laftigiisa uu noqdo qof ama macallin marka laga eego dhanka kale macallin uu noqdo oo dhakhaatiirteena qayb kamid ah uu noo tababaro waxa Ilaahay mahadiisa oo gobolkeena waxa loogu farxaa in ka badan 20 sida aan isleeyahay oo dhalinyaro oo dhakhaatiir oo soo qalin jabiyay inay joogan oo siciid cisago u weyn yahay inay joogan gobolkeena kuwa mid kamid ah oo baa related laga dhigi karaa lagu xidhi karaa oo connected laga dhigi karaa wax badan ma ku arkay waxaan filayaa inta in laga sii badin doono hadii la yiraahdo waxa anu point ugu muhiimsan aan isleeyahay halkan la gaarsiiyo waxa weeye CT scan ka dhakhtarku uu arkay waxa uu yaala meel gobolada kale uu yaala laakiin waxa ay tahay backup hadii failure uu dhaco kaas ugu muhiimsan ka waa in loo hayaa markasta ag yaala generator kaas markii uu take over qaadan kara waxa ku soo dhaweynaya agaasimaha gobolka soo dhaw ninkan waa salaamaya bulshada dhamaantii mashiinkan CT scan kuna wuxuu ahaa baahi taagan oo habeen walba iyo maalin walba aynu u baahanahay waxa jirta dhalinyaro aniga halkan uga mahad celinayo oo reer Laascaanooda oo leeyahay isxilqaan oo baahiyaha caafimaadka inta badan wax badan nagala qabtay waxyaabihii runtii aan u soo bandhignay oo balaanka noogu jiray buu kamid ahaa iskaanku ayuu kamid ahaa waxay soo qabteen ambalaasyada waqtigii aynu iibinaynay waxaan ku yiri war maalin walba dad lama sii carari karayne wax kale looma qaado dadka qofka traumadu ay ku dhacdo ama xabadiha ku dhacdo ama gaari ha la dhaco qof kasta oo traumatized ah waxa loo qaadaa in bal horta la eego meesha uu wax ka qabo qofkan intaan la qalin dhakhaatiir wax qali kartaa waa inoo joogtaa everything waynu haysanaa laakiin qofkan bal in horta gacanta la saaro oo meesha uu wax ka qabo la eego waa inaynu sawirno la fiiriyo waxaynu Hargeysa iyo dadkeenu waxay u dhintaan ama dhaawac noloshiisa iyo mustaqbalkiisa waxyeela oo tusaale ahaan qofka intii halka laga qaado Hargeysa la geeyo waa 1 kilomitir